zuhur wanaagsan dhageystayaal qodobada barnaamijkeena aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah shiinaha oo qafiifinaya bandowgii saarnaa magaaladii uu ka bilowday cudurka covid-19 culimmada puntland oo sheegay inaysan jirin sababa ee loo xiro xilligan masaajidada ee somalilan oo karantiishay dad ku soo degay garoonka hargeysa maxay tahay sababta dadka yimaada ee dalalku cudurkaasi aafiyay ka yimaada dadkan soo dhoofin way og yihiin dalalkii yimaadeen baa u soo sheegay haddii tagaan Somaliland in 14 cisho karantiina ay galayaan dagaal beeleed ka dhacay duuleedka Kismaayo oo qasaare nafeed dhaliyay qodobadaasi kuwa kale oo caalamkii Soomaalida ku saabsan ayaad barnaamijkeena ku maqli doontaan waxa soo saaray Maxamed Cabdiraxmaan anigoo Bushra Nuur Maxamed ahna waan idin daadihin doonaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka iyo Samiir Cabdullaahi Jaamac mahadsanid Bushra saraakiisha Shiinaha ayaa sheegay in xayiraadihii lagu soo rogay magaalada Wuhan ee asal ahaan uu ka dilaacay fayraska ayaa la qafiifin doonaa ilaa inta laga gaarayo 8 bisha Abriil kiisas cusub oo uu fayraska soo ritay ayaa laga soo sheegaya magaalada Wuhan halkaasoo saraakiisha ay sheegeen in dadka haysta barnaamijka greenka ee caafimaadka ee mobilada lagu shubtay isaga soo bixi karaan Wuhan marka laga yareeyo xayiraadaha ku dhawaad 80 kiis oo hor leh ayaa laga xaqiijiyay gudaha dalka Shiinaha dhanka kale waxaa isa soo taraya dalalka Afrika ee shaacinaya kiisas cusub oo hor leh Dr. Michael Yao waa maamulaha gurmadka degdega ah ee WHO ee Afrika waxa uu BBC-da u sheegay in dalalka Afrika looga baahan yahay inay qaadaan tallaabo degdeg ah oo lagu xadidayo fayraska Our main concern is now that we start having walaaceena ugu weyn waxa uu yahay inuu nagu bilowdo isu gudbinta gudaha waxaa jiro dalal dhowr ah sida Senegal oo xoojinaya tallaabooyinka si ugu yaraan loo xakameeyo faafidda cudurkan working on the mitigation phase. Kiiskii ugu horeeyay ee coronavirus ah ayaa laga soo sheegayaa gudaha dalka Myanmar waana dalkii ugu dambeeyay ee ku yaala koonfur bari Aasiya oo laga helo viruska marka laga reebo Laos oo weli uusan cudurka gaarin dalka Thailand ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah muddo 1 bil ah oo laga bilaabo maalinta Khamiista ah dawladda ra'iisul wasaare Prayut ayaa loo soo jeediyay eedeymo ku aadan in aysan tallaabo adag ka qaadin xakamaynta cudurka ee dalkaasi gaaray madaxweyne Trump ayaa sheegay in uu aaminsan yahay in dad badan ay u geeriyoon karaan bandow muddo dheer qaadanaya iyadoo laga cararayo fayraska corona waxa uu sheegay in uusan filaynin in tallaabooyinka xakamaynta fayraska ee Mareykanka ay ku qaadanayso 2 toddobaad balse aan ahayn 2 bilood dadka reer Britain ayaa waxa u bilaabanaysa maalintii ugu horeysay ee xayiraadda dhaqdhaqaaqa taas oo dawladdu ay ku xakameynayso faafidda fayraska shacabka ayaa kaliya loo ogol yahay in ay banaanka ugu soo bixi karaan marka ay soo iibsanayaan waxyaabaha asaasiga ah ugu dambeyntiina madaxweynihii hore ee Finland ee ku guuleystay bilada dahabka ee nabadda iyo xaaskiisa Eva ayaa laga helay fayraska COVID-19 xafiiskiisa ayaa sheegay in 82 jirkan uu haatan caafimaad qabo balse lala tacaali doono xanuunkiisa warka caalamkan waa naga intaa Bushro Samiiro aad ayaad u mahadsan tahay dhageystayaal u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka aan ku bilownay sidaad warkaba ku maqlayseen dowladda Shiinaha ayaa sheegtay inay qayb ahaan qaadi doonto bandowga saaran magaalada Wuhan oo ah halka uu ka bilowday cudurka COVID-19 ee safmarka noqday dhanka kale madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in dalkiisa ay wax kasto oo caadi markaasi ku soo laaban doonaan toddobaadyada soo socda Afrikana cudurka waxa uu dilay fanaan caan ah oo u dhashay dalka Cameroon wararkii ugu dambeeyay ee COVID-19 waxa inoo haya Faarax Lamaane oo stuudiyaha la fadhiya Bushra inkastoo magaalada Wuhan la sheegay in qayb ahaan bandowga laga qaadi doono 8 Abriil ayaa misna inta badan gobolka Hubei ee magaalada ay ku taalo waxa xayiraada laga qaadayaa wixii loo gaaro caawa habeen barka gaar ahaan dadka caafimaadka qaba halka ku nool talaadada maanta ahna waxa magaalada Wuhan laga helay hal kiis oo ah xanuunka corona hase yeeshee wadamo badan oo dunida ayaa waxa ay galayaan bandowga uu gobolka Hubei ka baxayo UK waxa xalay lagu dhawaaqay tallaabooyin xayiraada ah oo lagu soo rogay sida dadku in aysan laba qof ka badan isu imaan karin
karin iyo in la xiro dukaamada aan iibinaynin waxyaabaha daruuriyaadka ah. hase yeeshee saaka waxaa lasoo sheegay in tiyuubyada magaalada London waa tareenada dhulka hoos mare inay aad u mashquulsanaayeen, inkastoo ra'iisul wasaare Boris Johnson uu sheegay in dadku aanay guryahooda ka soo bixin haddii aanay jirin arrin muhiima oo kalifaysa in sidaa ay sameeyaan. Afrikana cisbitaal ku yaala duleedka magaalada Paris waxaa ku geeriyooday sida aad sheegtay fanaanka reer Cameroon ee Manu Dibango ee caanka ku ah ka dhawaajinta turumbada saxofoonka la yiraahdo iyo heesaha jaazka ah. toddobaadkii hore ayaa cisbitaalka la dhigay fanaankan 86 jirka ah. isla Afrikana xarunta qaaradda u qaabilsan xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada ayaa waxay sheegaysaa in 1654 kiis iminka la xaqiijiyay qaaradda oo dhan, iyadoo cudurkana laga soo sheegay 44 ka mid ah 54 dal ee qaaradda. dalalka South Africa, Senegal iyo Ivory Coast xaalada degdeg ah ay dalalkooda ku soo rogeen. Mareykankana shirkii jaraa'id ee ugu dambeeyay xanuunka corona ya Mr Trump waxa uu ku sheegay in Mareykanka uu muddo toddobaadyo ah dib ugu bilaabi doono howlihii la joojiyay xanuunka awgiis. sababtana Mr Trump waxa uu ku macneeyay tallaabadaas loo qaaday inay tahay in dad badan ay u dhiman doonaan xayiraado daba dheeraada. khubarada caafimaadkana waxay ka digeen in dadka Ameerikaanka oo xadida ama wax ka bedela sida ay u wada kulmayaan mooye aan loo taag heli doonin la tacaalidda cudurka coronavirus. gobolka New York oo ah gobolka uu aadka u saameeyay xanuunka ayaa waxa uu dalbanayaa qalabka lagu neefsado iyo shaqaale caafimaad oo dheeraad ah. aad ayaad u mahadsantahay Faarax. dhanka Puntlandna culimada waxay sheegayaan in xilligan aan la joogin markii la xiri lahaa masaajidada deegaanadaasi, balse ay hay'adda dowladda markaasi iska kaashan doonaan sidii dadka looga wacyigelin lahaa khatarta cudurka COVID-19. Sheekh Maxamed Godane Xoosh oo ka mid ah culimada Puntland ayaa kulan ay maanta la yeesheen wasaaradda cadaaladda iyo waxyaabihii ay markaasi ku heshiiyeen waxa uu uga waramay wariye Axmed Caawil Jaamac. waxaan ka wada hadalnaa horta marka koobaad wada shaqayn waxa la wixii shareecada waafaqsanna inaan gacan isku siino. dadweynaha ummadda Soomaaliyeed iyo Puntland waxaan ugu yeeraynaa laba qaybood in laga wada shaqeeyo. qaybta koobaad oo ah waxa la taaban karo, qaybta labaad oo ah waxaan loo jeedino tawakkalka ugu horeeyo. waxaan ummadda u soo jeedinaynaa arrimahan ku saabsan xanuunkan wax allaale wixii looga hortagi karo oo shareecadanu ay gacan ugu siinayso, sida rasuulkuba calayhi salaatu wasalaam uu yiri meeshuu ku dhaco xanuunka bawaa'iga lagama bixi karo lamana geli karo, inaan gacan isku siino. wada shaqayn baan dawladda ka wada hadalnay, waana wada shaqaynaynaa, waana soo dhaweynayna tacaawunkaas. shalay oo kale wasiirka wasaaradda cadaaladda waxa uu ka hadlay goobaha la iskugu yimaado in laga taxadaro oo masaajidaduna ay ka mid yihiin. waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la xiro. marka ma isla qaadateen masaajidada in albaabada loo laabo? maanta kulankeena aan wasaaradda la galnay iyo warkii ka soo baxay dawladda waxaa ka dhaxeeya wada shaqayn. marnaba kuma aanan heshiinin wax diinta iyo shareecada ka soo horjeeda. wuxuu ahaa warka culimada iyo dawladda ka soo baxay war iskaalmaysanayo ah war aan wada shaqayno, aan diinta sidii loogu khidmayn lahaa, dhibka ummaddeena looga hayn lahaa aan gacan isku siino. masaajidadu waxay noqon doonaan meelaha ugu dambaysa oo markan wakhtigeeda la gaaro laga tashan doono. hadda laakiin waxaa ka horeeya asbaabtii ahayd dadka in lagu wacyigeliyo. waxaa ka horeeya meelaha masaajidada ku xiran oo ka mid yihiin meelaha lagu weysay masquulada in la sii xiro. waxaa ka horeeya wakhtiga masaajidka la joogo in la soo gaabiyo. waxaa ka horeeya khudbada jumcaha iyo jamaacada in mid kooban ay tahay. waxaa ka horeeya meelo kaleeto dhib ummadda ku haya in laga tacaawuno. xaramkiiba waa la xiray oo meelaha ugu muhiimsan ku jiray. marka maxaad idinku aad dib ugu dhigteen maadaama caalamka oo dhan xanuunkan uu fara kulul uu ku hayo? waxaan dib ugu dhignay wakhtigan la joogo Soomaaliya iyo guud ahaan iyo Puntlandba wax kays ah oo taagan oo la oran karo xanuunka fara baan buu nuga hayaa lama gaarin. masaajidada marka hawsheeda ugu dambaysahay wada tashi dib ka imaan doona weeye. laakiin hadda waxaa ka horeeya meelihii ku xirnaa allabarigii iyo tawciyadii iyo nadaafadii inaan gacan iska siino. annaga iyo dawladuna meel baan wada jeednaa. dhanka kale wasiirka cadaaladda ee Puntland Caawil Sheekh Xamuud ayaan ka wareysanay waxa laga yeelayo howlaha cibaadada ee masaajidada. waxaan isku raacnay dhammaan salaadaha waqtigooda iyo waqtiga aadaanka inay isugu dhow yihiin, aad isugu dhow yihiin, oo markii la aadimaba wax yar ka bacdi la tukado, sunnayaashana guryaha lagu tukado oo qofku uu aado gurigiisii uu ku soo tukado, lagana baxo masaajidka haddii alla idmo. waxaan kaloo isku raacnay in la xiro dhammaan musqulaha iyo meelaha lagu wasaysay masaajidadu ay leeyihiin iyadoo taxadar ahaan loo samaynayo. waxaan kaloo isku raacnay dhammaan in la joojiyo duruusta ka baxda masaajidada Puntland, iyaguna ay gaarsiin doonaan masaajidada kale haddii alla idmo, taxadarna loo samaynayo. annagoo in badan falanqayna arrintaas waa isku raacnay duruusta in la joojiyo. waxaan kaloo isku raacnay iyadana jimcayaasha waqtiga salaada iyo khudbada 15 daqiiqo inaysan ka badnaan, dadkuna hore ay ka baxaaniin oo iyaguna ay maaragtay sunnayaasha guryahoodii ay ku tukadaaniin oo xagga ay aadaaniin. waxaan kaloo isku raacnay iyadana
masaajidka xiritaankiisu inuu noqdo oo la xirayo masaajidada dhulka Puntland ay ka dilaacanin in xiritada masaajidadu markaas waqtigeeda uu yahay laakiin hadda ilaahayna la sii baryo dadkana la xadido dhaqdhaqaaqana la xadido nadaafadana aad loo ilaaliyo isu imaatikana la yareeyo kaasi wuxuu ahaa wasiirka cadaaladda ee Puntland Caawil Sheekh Xamuud halka dhageystayaal wali nagala socotaana waa BBC haatana Somaliland wasaaradda caafimaadka ee jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax banaanida ee Somaliland ayaa sheegtay inay karantiishay ilaa 17 qof oo la socday diyaaradda Ethiopian Airlines ee taasoo shalay galab ka degtay magaalada Hargeysa wasaaradda ayaa sheegtay inay sidoo kale hayso dad ka yimid dalal uu ka dilaacay cudurka COVID-19 balse ma aysan shaacin tirada saxda ah ee dadkaasi Dr. Maxamed Caydiid Cilmi waa la taliyaha wasaaradda caafimaadka ee Somaliland waxa uu arintan dadka la karantiilay uga waramay wariye Cabdullaahi Jaamac waxaa jirtay in dawladda Somaliland qaybteeda imaka ugu sarreysay ee wasaaradda ay soo saartay warcad ay leeyihiin dalka aafada qaba dadka jooga ee Soomaaliyeed ama Somaliland u dhashay yaani imanin Somaliland haddayse yimaadaan waxaa jira sharci oranaya oo dalka dhamay ku heshiiyeen oo xeerka caalamigu sheegayo in qofka la hayo 14 cisho oo lagu hayo meel karantiina si loo hubiyo isaga caafimaadkiisa iyo sida looga ilaaliyo inuu aafo u geysto bulshada kale caafimaad qabta uu doonayo inuu la dhaqmo taas markaa wasaaradda caafimaadku waxay u diyaarisay meelihii dadkaasi lagu hayn lahaa ee karantiinka meelahaasina waa meelo aan ahayn jeel dadku waxay haystaan markaa karantiin meel maxbuus oo qofku maxbuus ma aha qofku wuxuu degan yahay fillo meel wanaagsan buu degan yahay cunta la siiyaa dhaqaatiirtuna 4 saacadoodba way eegtaa dadkaasi ma jiraan la karantiimay shalay maaha wax cusub marka horeba uu karantiimay dadka yimaada ee dalalku cudurkaasi aafiyay ka yimaada alba waanu eegi jirnay waanu hayn jirnay laakiin waxa laga yaabaa ilaa shalay malaha dadkan faraha badan ee dhowr 10 ah ay dadku la yaabsan yihiin waa iskan caadi weeye markii yimaadaan dadkaasi ka yimaadaan dalkaasi hadduu aafa leeyahay wayikun way ogyihiin dadkan soo dhoofin way ogyihiin dalkii yimaadeen baa u soo sheegay haddii tagaan Somaliland in 14 cisho karantiina ay galayaan marka imika dadkaasi karantiinka ee 17 ah waa la hayaa Soomaa oo gacanta lagu hayaa waa la socdaa dadka horeeya jiray oo la karantiimo iyaguna hore u haysteen way jiraan oo markasta dadka noogu jira ee aanu ka shaqno ama dalalka yimaado waanu haynaa waanu xaqiijinaa in 14 cisho dhameystaan dabeetana waxaanu ka qaadnaa sheebaar haddaan wax ka weyn way iska tagaan bulshada soo deynaa tirada guud dadka la karantiimay hadda doctor noo sheegto waa imisa imaka ilaa hadda maantada tan aan taaganahay dad baa yimid marka tirada guud kuma sheegi karo kuma waa 10 waa 20 waa 30 laakiin kulliba 20 kama yara doctor marka dadka aad karantiinteen ehelkoodii iyo waxaasi ma soo eegi karaan ma u tagi karaan mise looma ogola sida qalabka ah waanu ka helnaa ehelkooda waayo qofkani hadduu dhibaatoodo ehelkooda wuu qaasiinaya marka ehelkooda waxaana telefoon kula hadli kartaan hase haddii dadkeenu wax u haystaan haddii la yiraahdo war halkan joog dhowr cisho halogase meeshan maxbuus ku yahay war qofku maxbuus maaha qofku waxay isaga caafimaadkiisa in la eego iyo inuu bulshada afa gaarsiin weeye taa in la isla garto weeye dadkuna umahan qof dambi gale maahan dalalkii aad hore u sheegteen inaad dad laga soo qaadi karin miyaa dadkan laga soo qaaday mise waa caalamka oo dhan cidda ka timaada dadkan la karantiimaya waa sida qalibka waxaanu eegnaa hadba heerku uu marayo cudurkaasi dalba marka loo eego China hadda hoos buu dhacaya hase haatee weli waanu ku daba jirnaa haddii aad eegto dalalka Iran oo kale hor buu socdaa Talyaani waa arto kor buu si kacaya Faransiiska kor buu si kacaya Ingiriiska kor buu si kacaya xitaa Mareykanka kor buu si kacaya marka dalalkaasi dadka ka yimaada walaalo waxaanu sinaa taxadir gaar ah laakiin hadduu ka yimaado dalalka Afrikaanka qaarkood ka yimaado oo cudurku amba hal qof ama laba qof ku dhacay uma eegno marka waxa laga yahay hal qof marka dalka hala karantiimo saas ma oran karno marka waxaanu eegnaa hadba xadku u gaadhsan yahay faafka caabuqaasi Dr. Maxamed Caydiid Cilmi la taliyaha wasaaradda caafimaadka Somaliland oo u waramayay Cabdullaahi Jaamac haatana Kismaayo
ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhintay, tiro intaa ka badan oo ay ku dhaawacmeen kadib markii saaka iyo xalay isku horimaadyo ay ka dhaceen duleedka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, kuwaasoo dhex maray maleeshiyo beeleedyo wada degan halkaasi. Wariyaha BBC-da Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan ayaa telefoonka Kismaayo ku wareystay Maxamed Cabdi Madoobe oo gudoomiye u ah guddi culimo oo markaasi muddoba ku dhex jiray xalinta khilaafka beelahan. wararka ugu dambeeya oo deegaanka naga soo gaaraya waxay sheegayaan inay 2 nin dhimatay, qof dumar inuu dhaawac yahay. deegaankan waa deegaan iska kacsan oo mar hadday xabad ay dadka baayaa ka dhex bilaabato kala badan tahay. dhulka lagu dagaalamaya haddaad dhageystayaasha u sheegi lahayd. dhulka lagu dagaalamaya wuxuu ku yahay aagan sidaas uga dheereen, marka airportka la daba maraba aaga dagaalka waa gelaya. airportka Kismaayo haddii la daba maro wixii ka dambeeya aaga dagaalka waa aaga lagu dagaalamayo weeyaan, ilaa iyo 40 kilomitir wareegiisa inuu dhan yahay ka badnaan waayo. colaadani goormay soo bilaabatay asalkeedii horeba? colaadan asalkeedii hore sanad ka hor baa jirtay inay mar sidan oo kale ay labadan reer dagaalameen, markaasna waxa weeyaan culimada iyo maamulka labadu way ka qayb qaateen. hawshaas waa la dhamaystiray, heshiis aad u qurux badan baa maaragtay laga soo saaray oo laga qoray. heshiiskaas laakiin dhaqangalkii loo baahnaa muusan helin. soo markay kasoo wareegtay 1 sano oo wax yar dhiman ama 1 sanaba dhanba haddana mar labaad xaqiiqdii dib loo soo kacday. asbaabaha keenayna waxay ahayd heshiiskii la galay loo baahnaa. marka saa keenaysa maxay keentay inuu maaragtay mar labaad uu dib u soo noqdo dagaalkii sanad ka hor si fiican heshiis aad u qurux badan laga gaaray. muddaad ku dhex jirteen xalinta colaadda beelahan u dhaxaysay, haddii aad dhegaysateen labada dhinac muxuu salka ku hayaa khilaafka beelahan u dhaxeeya? sida heshiiskooda ka muuqata inta badan waxyaabaha laga hadlayaay waa dhul baa la ooday, dhagax baa meel laga qoday, maaragtay wax weyn oo waad garan kartaa dhaqanka Soomaaliyeed wixii ay dad isku haysan jireen Soomaali weeyaan waxa ka dhaxeeya dib weyn uu leeyahay oo la taaban karo oo la oran karo waxaas waa dib weyn hal xalliyo oo muuqanaya ma jiraan. laakiin waa dhaqankii Soomaaliyeed xinif yar haday timaado waxa ku xigaya uu dil ahaan jiray un ba ka dhaxeeya. waa dad ehela, waa dad wada dhashay, waa dad isdhalay, waa dad dhaqan wadaaga oo muddo dheer soo wada noolaa, waa dad wax u dhaxeeya oo oran kartaa waxana farqiga u dhaxaysan jirin. haatanna baafintii